السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan. weerarkii dhawaan ka dhacay dekad ku taala dalka Masar oo lagu weeraray maraakiib Mareykanku leeyahay ayaa saakay wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ay Israa'iil eedu noqotay oo iyada markan la soo cadeeyay inay ka dambeysay. haddaba sidee wax u jiraan maxaase soo kordhay saakay wararkii ugu dambeeyaan idin haya iyo Masar oo wacad ku martay haddii ay si rasmi ah ugu cadaato Israa'iil inay tallaab qaadi doonto. haddaba Masar maxay qaadi doontaa? wararkaas iyo xiisadaas taagan ayaynu saakay ka hadli doonaa. ciidamada Iiraan oo sheegay inay weerareen saldhig Mareykanku ku leeyahay Kuwait. wargeyska weyn ee yiraahdo Wall Street Journal oo saakay qoraya war la yaab leh oo sheegaya in Mareykanku ay ka fakarayaan inay isaga cararaan Kuwait kadib markii weeraro adag ay ku qabsadeen toddobaadyadii la soo dhaafay. BBC-da waddanka Britain ayaa iyaduna waxay sheegaysaa nin u basaasayay Iiraan in lagu qabtay saldhig ciidan oo Ingiriisku ku leeyahay jasiiradda Qubrus. qodobo muhiim ah ayaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena koowaad. haddaba waxaynu ku bilaabaynaa arrin ku saabsan weerarkii maalin ka hor ka dhacay dekad ku taala Masar. weerarkan waa weerar cajiiba waaye. shalay ilaa xalay qolooyin masaariya hadlay warbaahinta warsiiyey waxay yiraahdeen Iiraana ka dambeysay. baaritaankii wuu socdaa weli waxaasuu wax ka jira malaha la leeyahay oo sheekada Mareykanka dhankaas Iiraan ma ahana la leeyahay. haddaba saakay bahashii waxay lugaha la soo gashay Israa'iil. Masar waagaa ku bariyay. Mareykanka laftirkiisa waxaa la leeyahay waagaa ku bariyay oo sheekada waxa meesha ka dhacayba inay Israa'iil abaabushaa la leeyahay. haddaba marka sidee wax u dhaceen wararkii ugu dambeeyaan idin haya. haddaba wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al-Carabiya wuxuu leeyahay Iiraan waxay ku eedeysay Israa'iil inay iyadu ka dambeysay weerarkii daroonka ahaa ee lagu qaaday dekadda Masar ku taala ee la yiraahdo Damyaad. haddaba warbixintu way sii socotay. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi ayaa sheegay Masar inay tahay saaxiib iyo shariik ay leedahay Iiraan, waxaana uu sheegay inaanay iyagu wax shaqo ku lahayn weerarkii ugu dambeeyay ee lagu qaaday dekadda. laba markab oo halkaa ku sugnayd waxay sheegtay Iiraan inaysan iyadu wax shaqo ku lahayn weerarkaas. Masarna ay tahay inay si cilmiyeysan ay arrinkaa isaga ilaaliso ay u baarto. waxaa la sugayay falcelinta Iiraan waxay tiri waxaas annaga ma Masar saaxiibaan nahay baddaas Mediterranean-ka iyo howlaheedii annaga weli meeshaas waxba kama fulin. annaga Hormuz iyo meelahan iyo Bab al-Mandab iyo dhulkan iyo awlaada iyo waxaas waaye, laakiin xagga annagu wax shaqo ku leenahay maba jirtay. markii warkaasu ay saakay Iiraan sii deysay isla markii Israa'iil way soo hadashay. u fiirsada baashu way isku xirantahay. haddaba arrinta tusoo wararkii ugu dambeeyay isla Al-Carabiya waxay leedahay markii sheekadanu soo baxday Israa'iil way beenisay iyadana. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay sheegashooyinka iyo eedeymaha loo soo jeedinayo in Israa'iil ay ku lug lahayd beegsiga dekadda la yiraahdo Damyaad ee dalka Masar inay tahay midaan waxba ka jirin. war-saxaafadeed ay goordhow soo saareen ciidamada Israa'iil ayaa waxay ku sheegeen inaysan sax ahayn wararka lagu soo riixayo Israa'iil ee la leeyahay inay iyadu ka dambeysay weerarka laba markab oo Mareykanku leeyahay oo ku sugnaa dekad ay Masar leedahay. maraakiibtaas oo lagu weeraray sida la leeyahay diyaarad daroora. muujeeda sheekada nimanka waa iska iyaguna waxay leeyahay ku soo riixin fuustada. Iiraan waxay leeyahay ku soo riixin nimankaas waay. nimankan waxay leeyihiin annaga ma ahan nimankaas waa si fiican isaga hubay. iyaguna waxay leeyihiin Iiraan ka dambeysay iska hubay. sheekadu markay halkaas joogtay ma jiro markaa
war rasmi oo dowladda Masar afkeeda ka soo baxay ma jiro marka laga reebo mas'uuliyiin masaariya ayaa sidaa yiri marka la leeyahay maahane war official oo rasmi ah dowladdu ay cidaas ka dambeysay dhacdo wali lama hayo laakiin nin qatara oo siyaasi ah oo masaari ah oo soo noqday kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ayaa war rasmi ah soo saaray haddaba markaan idintuso telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ee hore ayaa wuxuu sheegay Israa'iil inay tahay cidda ka dambeysay weerarkii ka dhacay dekedda Damyaad kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ee hore ninka la yiraahdo Salah Halima ayaa wuxuu sheegay in baaritaanada hadda soo baxay ee horudhaca ah ay muujinayaan diyaaradda daroonka ah in markaa ay weerartay halkaas laakiin wuxuu sheegay inaanay dowladda Masar weli xadidin jihada rasmiga ah ee weerarku uga yimid laakiin ninka la yiraahdo Salah Halima kaaliyihii hore wasiirka arrimaha dibadda ee Masar wuxuu leeyahay shaki kuma jiro in ay arinkanu ka dambayso Israa'iil way sheekada markaas halkaas ay maraysaa moogtay sheekadan marka sheeka saalan ma hadda dowladda Masar waxay leedahay taxqiiqiya socda baaritaanka rasmiga markuu soo dhamaado haddaan ku helno nimankan Israa'iiliinta annaguna waxbaan ku samayn doonaa tolo maxay samayn doontaa Masar Israa'iil maxay ku samayn doontaa iyaduna ma drones weerara gaadmay ku qaadi doontaa lama yaqaano Mareykankii weerarka lagu qaaday ayaa aamusan qaar waxay aaminsan yihiin dadka qaar Mareykanka laftirkiisu inuu ogaaday Israa'iil inay ka dambayso markaasuu sanbaashu sii buunbuuninay haddii Iiraan ka dambayso taraamuusii qaylin lahaa maraakiibana la ka gubay annaguna waxaan gubaynaa maraakiibtooda dekadahoodu dhihi lahay leeyihin laakiin baashi marka Israa'iil noqotay iyaguna way iska gaabsadeen marka sheekadaasu wararkaas ayaa ka soo kordhay saacadihii la soo dhaafay waayahay arinta Kuwait aan galaynaa Kuwait marka dhowr warara ka soo baxay in jugta laga geliyay saakay la garaacay saldhig Mareykanku leeyahay iyo in Mareykanka uu qalab qaatay uu ka cararayaba hadda ka hor toddobaad ka hor waxaan soo gudbinay Mareykanka saldhigii ugu weynaa Qatar Al Udeyd inuu iskaga cararay haddana wuxuu ka cararayaa Kuwait ballanta Iiraan ay qaadaa waxay ahayd haddii Mareykanku sii wado weerarada uu nagu hayo gobolkan waa ka saari doonaa Urdunna inuu ka baxay in kala shakiya ku jiro hadda waa ka sii cararaya leey sheekadu marka halkaas maray haddaba markaan idintuso wararka ka yimid dhankan iyo Kuwait haddaba warka ugu horeeya wuxuu leeyahay ciidanka Iiraan waxay sheegeen inay weerareen saldhig Mareykanku ku leeyahay halkaas oo wadanka Kuwait uu ku leeyahay haddaba warbixintu marka waxay leedahay ciidamada wadankaasi Iiraan waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen goobo warshadaha oo markaa ay lahaayeen ciidamada Mareykanka ee dalka Kuwait ku sugan haddaba waxaa la sheegay diyaarado drones saacada ka hor inay weerar ku qaadeen halkaas saldhigaas oo lagu magacaabo saldhiga ciidamada ee la yiraahdo Ahmed Al Jabir ee ku yaala dalka Kuwait haddaba waxaa sidoo kale ay sheegeen Iiraaniyiintu inay weerareen goob ay ku xareysnaayeen diyaaradaha dagaalka iyo qalabka isgaarsiinta ee la shaqeeya dayax-gacmeedka Mareykanka haddaba waxaa la sheegay sidoo kale inay weerarkaas saameyn ku yeesheen mustawdacaad ama makhaasiino lagu kaydinayay hubka Mareykanka saldhigga la yiraahdo Ahmed Al Jabir la yiraahdo way marka sheekadaasu marka waa war saakay dhacay saddex meel oo muhiima in la weeraray diyaaradaha dagaalka meel ay ku jireen isgaarsiintii dayax-gacmeedka ku xirayay saldhigga meeshii uu ku rakibnaa iyo intaasaa la duqeeyay waayahay marka Iiraan waray soo saartay waxay tiri waxba ha qarinina waxa aan idinku samayna sheega iyo khasaaraha aan idin geysan
حال قرصنيسان جوجتين وايدن ليني قلبا idinka baabi'inay waa ka hadla haddaba markaan tuso wararkii ugu dambeeyay ciidanka Iran waxay leeyihiin cadawgu wuxuu joogtaynayaa inuu qariyo waliba si daran khasaa'irkiisa ama khasaarada soo gaartay waa qarsanaya haddaba waxay sheegeen in markaa jaraa'imta iyo cuqubaadka ama dambiyada iyo dhibaatooyinka uu geysto ayaa markaasi waxa ay keeneen in isagana lagu ciqaabo oo dhibaatadaas loo geysto Iran waxay muujinaysaa inay isdifaacayso howlgallada ciidanka ilaalada kacaankana waxay adeegsanayaan diyaarado drones iyo gantaalo Iran ay leedahay waxaana la sheegay in ay ku adag tahay cadawgu inuu waxa uu rabo sameeyo ugu dambeyntii waxay leedahay Iran ciidankeedu cadawgu wuxuu si joogto ah u qarinayaa waliba si daran inuu banaanka soo dhigo akhbaarta khasaarada soo gaartay ee aanu u geysanay hadday tahay dadka aanu ka laynay iyo kuwa aynu ka dhaawacnay intaba in markaa uu qarsanayo oo jugtaas uu qarsanayo leeyihiin way marka waxay leeyihiin ninkaasu ama Mareykanka waa qarinaya waxba qarin adeer banaanka keen waxaan waa la ogaanayaa maalin way sheekadu markay halka marayso waxa uga sii daray journalka la yiraahdo Wall Street Journal oo saaki laga soo xiganayo war uu leeyahay Mareykanku wuxuu daraasad ku hayaa inuu isaga cararo Kuwait iyo Bahrain iyo Urdun iyo sida ay u duqeynayso hadda waxa leeyahay faga taxwaay odagii dhig la qabto bale beeshaan maba joogi karnay taageen askarta nimanka maba iska dhicin karnay ma to dhab wada garaacayaan marka hadda waxa leeyahay odagii inuu iskaga cararo ayaa hadda marka miiska u saaran waa qaxaya haddaba markaan tuso wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera waxa leedahay journalka la yiraahdo Wall Street Journal ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa saakay qoraya warbixin uu leeyahay Mareykanku waxa uu dib u eegis ku sameeynayaa joogitaankiisa military ee dalka Kuwait marka meeshaas maba la joogi karaa la leeyahay odagii wuxuu leeyahay meeshaan askarti waa qaylis meelaan joogi karno ba meel oo mar walba jugta lagu hayo difaaca cirka ah Mareykanka ha sheegin waatan Iran ay ku feesteenayso leedahay waxba jugtaada qarsan adeero banaanka keen bari waa la ogaanayaa marka waa sheekadaas ayaduna halka ka dhacday wararka kale ee cusub ee soo kordhay waxa kamid ah warbaahinta Ingiriiska waxay leeyihiin dad sirdoon ah oo u shaqeynaya Iran ayaa saldhigyada uu Ingiriisku ku leeyahay Qubrus mid ka mid ah lagu qabtay Iran dad ay leedahay ayaa saldhigyada reer galbeedkii ugu waaweynaa ayay ka shaqeynayaan lagu leeyahay haddaba marka warkan oo war cusuba waxa leeyahay BBC-da ayaa sheegtay in la xiray shakhsi lagu tuhmayo inuu u jaajuusayay Iran saldhig Britishku ay ku leeyihiin jasiiradda Qubrus haddaba BBC ayaa waxay sheegtay in la qabtay ninka Britishka ah ee markaasi haystay jinsiyadda wuxuu haystaa la leeyahay nin British ah oo asal ahaan haystay jinsiyadda Azerbaijan inuu markaa sameynayay tajassus ama jaajuusnimo saldhiga la yiraahdo Okrotiri kaasoo la sheegay inay leeyihiin ciidamada cirka ee boqortooyada Britain wuxuuna ku yaalaa Qubrus ninkan ayaa la sheegay inuu warbixinada saldhiga u gudbinayay ciidanka ilaalada kacaanka Iran way marka wararkaasu ayay ahaayeen wararka ugu waaweyn ee saaran warbaahinta saacadihii la soo dhaafay asxaabay barnaamijka ku xirnaada mar walba maanta waa Jimce la gareeyo oo shirgareeya inta aan mar kale kulmayno haddii Allah idmo iyo barnaamijyada soo socda nabadgelyo